bismillahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada Soma IT tutorials iyo cashiradii Python-ka cashirkii 20aad. Cashirkan wuxuu inooga bilaaban doonaa range of indexiga ee tubalka. Hore waxa uu soo sharxaynay kusoo dhex jirnay haddii aad xasuusatid cashirkan tubal ama table sidaad u taqaanid oo ah mid qayb kamid ah data typeska Python-ka sida aadka loo isticmaalo. Horan u soo sharaxnay cashirkii ugu dambeeyay skaaltoonada kusoo sharaxnay wuxuu nooga bilaabanaa marka range of indexiga sidee loo sameeyaa. Tusaale ahaan oo kale haddii aad rabtid oo kale inaad soo daabacatid values tubalka kugu jira ama data tubalka kugu jirta oo muxuu ahaa group ah 3 data oo kale 4 data oo isla socoto kale isku xigta inaad daabacid rabtid waa range of index ay isticmaalaysaa nidaamka la dhaho. You can specify waxa cayimi kartaa a range of indexes by specifying adigoo qeexaya ama cayimayo where to start and where to end. haddii aad rabtid marka tusaale ahaan oo kale items badan inaad daabacdid laakiin aad kulligood rabin inaad daabacdid oo qayb kamid ah tusaale ahaan inaad soo qaadataa rabtaa waxaad samayn kartaa indexiga uu ka bilaabayo ayaad u sheegaysaa indexiga uu ku dhameynayo ama uu ku ekeenayo waa u sheegaysaa intaas ayuu ku daabici doonaa. When specifying a range marka aad range sameynaysid hore rangegan usoo sameynay listiga the return value qiimaha uu soo celinayo marka tubalka will be a new tuple cusub ayay noqon doontaa with a specified items oo itemskii adiga aad qeexatay oo cayimtay in lagu daabaco ayaa tubalkaas lagu store gareyn doonaa. Tusaale example-kan fiiri wuxuu leeyahay return waxaad soo celinaysaa the third, fourth iyo fifth item ee tubalkan. Hadda waa kan tubal waxa ku store gareysan apple, banana, cherry, orange ilaa iyo items badan ku store gareysan. Itemka saddexaad oo hadda markaa tirino 1 2 3 waa cherry, afraad orange, shanaad oo fifth ah melon. Intaas items ayaa la rabaa inaad daabacdid oo si isku xigaan u soo daabacdid. Objective ku store gareysan waa tubal sida maxaa sameeynaa marka dabcan printiga ku dhex qorinaa tubalka ayaa soo qaadanayna kabacdi range ayaa isticmaalaynaa indexiga calaamadan square muxuu ahaa bracket ayaa la isticmaalaa marka range-ga sameynaysid meesha uu ka bilaabayo aad sheegaysaa 2dan maxaa laga wadaa indexiga dabcan itemka saddexaad aan rabnaa inaan ka bilaabno laakiin tubal kaliya maahan muxuu ahaa programmingka indexiga markuu xisaabayo 0 ayuu kasoo bilaabaa 0 1 2 locationka waa 2 marka locationka marka 2 ayuu ka bilaabi doonaa waxaan u ekeenaa marka 5 laakiin 5ka xisaabta laguma diri doono sida range-ga uu u shaqeeyo indexiga ugu dambeeyay asaga kuma jiro laakiin waa la sheegaa meesha ku simaa la dhahaa laakiin asaga ma lagu daraayo so muxuu sameyn doonaa marka 4 ayuu ku simi doonaa laakiin 5kaas kuma diri doono so cherry ayuu kasoo bilaabi doonaa orange ilaa iyo melon ayuu daabici doonaa output-kana kuu soo bixi doono haddii aad daabacdid oo marka range aad sameynayso oo indexiga ah. Tusaalahan kala fiiri tusaalahan waxa uu ku soo celinaa itemska waxaa kasoo bilaabaysaa ilaa iyo meesha ugu ka bilowdo tubalka ayaa kasoo bilaabaysaa meesha uu ku istaajinaya u sheegaysaa kaliya automatically ma sheegaysid meesha uu kasoo bilaabayo isaga by default wuxuu kasoo bilaabaa 0 laakiin meesha uu ku simaya u sheegaysaa fiiri apple, banana, cherry tusaalahan waxaa ku store gareysan tubal waxa uu dhahay fiiri print waxa daabacdaa waxa soo qaadanay objectigii tubalka range-ga meesha aan sheegi lahayn bilow kan waxa tuwa soo sheegnay tuwa ka bilaabina laakiin kan meel looga bilaabayo ma sheegin colon bisa la isticmaalay so automatically wuxuu ka bilaabi doonaa 0 oo ah itemka ugu horeeya ka soo bilaabi doonaa meesha uu ku simaya u sheegto 4 ugu soo laakiin xisaabta mar walba range-ga meesha lagu simayo uu ka bixi doonaa so maxaa la sameyn doonaa marka apple ayuu ka soo bilaabi doonaa location-kaas apple ayuu daabici doonaa waa 0 1 2 3daas ayuu daabici doonaa indexiga 0 ayuu kasoo bilaabi doonaa 4 dabcan kana u locationka anaga markaa tirino 1 2 3 4 locationka 4 ayuu inoo yahay laakiin indexiga locationkan melon ayaa waxa uu yahay 4 so 0 1 2 3 ayuu daabici doonaa oo apple, banana, cherry ilaa orange ayuu soo daabacay 4ka xisaabta ma lagu dari doonaa. qaabkaas marka waa qaabka aad indexiga oo range ah u sameynaysid groups oo muxuu ahaa data u daabacan kartid. Waxaa jira marka negative indexing oo aan soo aragnay asagana range waa ka sameyn kartaa specify negative indexes adigoo isticmaalaya if you want to start the search from the end goormee la isticmaalaa negative indexiga markaad searchingka kasoo bilaabaysid indexiga
meesha ugu dambeeya itemska meesha itemka ugu dambeeya kasoo bilaabeynaa. So -1 -2 -3 -4 saasay usoo soconaysaa ilaa iyo itemka ugu horeeyo lagu keeno. tusaale fiiri marka this example retains waxa uu soo celinaa the items wuxuu ka soo celinaa items ka bilaabanaya -4 ayaa laga bilaabi doonaa oo ah indexiga -4 ayaa laga bilaabi doonaa oo asagana xisaabtiisa la tiri doono ilaa iyo -1 ayaa lagu geeni doonaa oo aan asagana lagu dari doonin. maxaa laga wadaa intaan tuple objectgan waxaa ku store gareysan isla tusaalihii apple banana ilaa iyo cherry ku store gareysan laakiin indexiga markii negative ah maqashid xisaabtii hore 0 ka soo xisaabinaynay kan ugu 0 1 2 3 kan ugu horeeya ka soo bilaabaynay laakiin negative marka maqashid waxa laga soo bilaabi doonaa qaybta dambe mango ayuu ka soo tirinaa marka. so mango oo ah -1 -2 oo ah melon kiwi oo ah -3 -3 waa sax orange oo ah -4 so orange-gan ayuu ka bilaabi doonaa. tubalkan fiiri -4 ayaa ka bilaabeynaa waa orange colon markaan dhahno waxaan ku simi doonaa -1 kee waayo waa kan itemka ugu dambeeya ayaa -1 ah. so -1kan xisaabta laguma dari doono maadaama asaga lagu ekeenayo sharciga range-ga marka. so muxuu daabici doonaa marka orange iyo kiwi iyo melon ayuu daabici doonaa. outputkan ayaa kuusoo bixi doono waa indexiga oo negative markaa sameynaysid qaab range ah u sameynaysid qaabkaas ayuu noqonaa marka. kuwaasna marka inaa xusuusatid iyadana muhiim waa. horena waa ugu soo qaadanay listiga markaa sharxinay. check if item exists. tusaale marka item jeegaraynaysid haddii item ama value ama dato tubalka inuu ku jiro aad jeegaraynaysid mararka qaar tubalka waxaa ku jiri kara information data badanaa ku jiri karta values badanaa ku store garayn kartaa ma taqaanid marka itemski qaar inay meesha ku jiraan in kale sidee u jeegaraynaysaa. to determine if a specified item haddii aad rabtid marka inaad ogaatid item cayiman present in tubalka inuu ku jiro use waxaa isticmaashaa in keyword aa isticmaalaysaa. in keyword waxaa loo isticmaalaa in waxaan tubalka uu ku dhex jiro listiga xataa waa loo isticmaalaa hore usoo sheegnay qaabkaas ayaa kusoo daabici kartaa. tusaalahan fiiri check if apple is present in tuple sida apple banana cherry saddexdaas item oo string ah meesha ku store gareysan tuple object ku store gareysan yihiin conditionkan soo qaata asaga haddii condition xataa soo qaadato print muxuu ahaa yes apple is present tuple aad muxuu qaabka usoo bandhigtid waa okay no problem. so maxaa sameynaysaa marka if condition soo qaadanaysaa apple oo ah itemka aad rabtid inaad jeegaraysid waa string waa qaab string inaad u qortid waa marka. so in ayaa isticmaalaynaa intaas marka waxay jeegaraynaysaa ku jiritaan ayay fiirinaysaa itemkaas inuu ku jiro objectigan ayay soo qaadanaysaa oo tubalkii ahaa asagaa ka raadinaya python kabacdina lanekan ayuu ku daabici doonaa. xataa haddii aad rabtid fiiri programkan haddii aan tusaalahan soo qaadano tuble waxaa ku store gareysan 10 20 30 40 anagoonan dhihin condition isticmaalin automatically waxaan dhihi karnaa tusaale 30 oo kale 30 ma ku jiraa tubalka 30 in ayaan soo qaadanaa tuple objectigan soo qaadanaa laneka sidaas ayuu ku dhamaado. 30 oo ah itemkii aan rabo inaan raadiyo in oo ah operatorkii jeegarinayay inuu ku jiro objectigii laga raadinayo oo tubalka ahaa true ayuu soo saari doonaa qaabka marka ugu dhex qortid printida marka. sidaan marka waxay ka saacidaysaa idana inaa item ka dhex raadisid tubalka si fudud ay ka saacidaysaa. change tuple values marka aad rabtid marka qiimaha tubalka inaad bedeshid maxaa sameynaysaa. when is tuple is created you cannot change its value. taas xusuuso marka horena usoo sheegnay tubalka isma bedelo waa immutable qiimihiisa haddii aad rabtid inaad qiimo ka bedeshid ma ka bedeli kartid. so xal ayaa loo baahan yahay maxaa sameynaysaa haddii aad u baahatid marka tubalka inaad qiimo ka bedeshid waxaad u sameynaysaa convert tuple into list ayaa ka dhigaysaa list method ayaa isticmaalaysaa tubalka kabacdi change the listigaas itemkii kasoo bedelaysaa and convert the list back into tuple listigaas waxaa usoo bedelaysaa tuple sidaas marka muxuu ahaa item uga bixi kartaa item ugu dari kartaa asna sidaas wax update ugu sameyn kartaa tubalka laakiin sidiisii tuple item lagama bedeli karo. tusaalahan fiiri marka convert tuple into list to be able to change si listigan loo bedelo ayaa muxuu ahaa tubalka waxaa laga dhigaa marka list kabacdina muxuu ahaa itemka kasoo bedelaynaa waa soo celinaynaa markaas kabacdi. extana marka waxay u taagan tahay tubalkii oo muxuu ahaa objectiga apple banana cherry ku store gareysan
y-dana list cusub la sameeyey. marka maxaa la sameeyey listigan waa dabcan markaad tabtid inaad list wax u bedeshid waxaa isticmaalaysaa list method ayaa isticmaalaysaa. so list method aan soo qaadanay objectigii waxaan dhex gelinaynaa marka oo tubalka ahaa, sidaas waxay ku noqonaysaa list. waxaa lagu store garaynaa y-da, hadda y-daas wixii ku store garaysan waa list. y-dii ayaan soo qaadanaynaa, waxaan access garaynaynaa locationka koowaad itemka ku jira oo ah banana. marka ilaa datadii listia laga soo dhigay banana ayaa waxaa ku bedelaynaa kiwi, kabacdina waxaa u bedelaynaa tubal. xt ayaa soo qaadanaynaa, xt mid kale waa samayn kartaa haddii aad rabtid. tubal method ayaa isticmaalaysaa si aad tubal ugu bedeshid listi ugu bedeshid tubal. listigii oo y-dii ahaa oo aan item kasoo bedelnay ayaan dhex dhigaynaa, kabacdi tubal ayuu noqon doonaa. xtaas tubal lagu store garaynaa. haddii aad daabacdid xt marka maxay noqonaysaa apple kiwi, meesha banaan ahayd kiwi ayay isku bedelaysaa cherry. marka qaabkaas ayaa samaynaysaa. mar walba aad u baahatid in aad tubalka kasoo bedeshid daato ama wax kusoo dartid list ayaa u bedelaysaa, kabacdina listigaas ayaa wax kasoo bedelaysaa, update kusoo samaynaysaa, tubalkii ayaa usoo celinaysaa. marka list u bedelaysid maxaa sameynay list method ayaa isticmaalaysaa. waxaad dhex gelinaysaa tubal objectiga. markaad tubalkii list usoo listigii tubal usoo celinaysidna maxaa sameynaysaa tubal method ayaa isticmaalaysaa, objectiga listiga ayaa dhex gelinaysaa. qaabkaas marka qaabka u bedelaysid waxaa la mid ah marka item ku daraysid oo kale tubalkii sidaas ayaa sameynaysaa. marka itemka bixinaysid qaabkaas samaynaysaa. daatadan dhan isku mid waa marka unpacking a tubal. conceptigan concept aad u muhiim ah waaye. tusaale fiiri, when we create a tubal, markaan tubal anaga aan create gareyno, we normally assign values to it. waxaan sameynaa inaan qiimo tubalkaasi values ku assign gareyno ama ku store gareyno. this is called packing a tubal. qaabka marka waxaa la dhahaa packing a tubal ayaa la dhahaa. oo sidaan tusaalaha markaa sameynaysid oo kale apple banana cherry oo ah 3 values marka ku store gareynan hal variable oo aan tubal ka dhigayno packing a tubal ayaa la dhahaa. but in Python we are also allowed, laakiin Python ka sidoo kale waxaa naloo ogol yahay inaan sameyno extracting values. qiimahan inaan la soo baxno 3 values hada ku jirto, wax ka badanna way ku jiri karaan, laakiin tusaalahan 3 values ku jiro inaan la soo baxno, mid kastana aan ku store gareyno variable u gaar ah inagoo markaasi hal line programka isticmaalayna. nidaamkaasna waxaa la dhahaa tubal unpacking. unpacking la dhahaa marka nidaamka. marka tusaalahan hadda haddaan programka ku sameyno, hadda saa u jeedid inta waxaa ku store garaysan 10 20 30 40 afar values ku store garaysan. hadda soo qaato kale a iyo b iyo c iyo d oo ah afar variable oo aan dhaho equal, kabacdina aan soo qaato tubal objectigi, waxay micnaheedu ay ka dhigan tahay 10 20 30 40 ayaan extracting, waxaan kala soo baxaa tubalkan, kabacdina variableskan ku store gareynaa. mid walba sida u kala horeeya loogu store gareynaa. 10 a ku store gareynaysa, b da 20 ay qaadanaysaa, c da 30 40 saas ay qaadanaysaa. haddii aan daabacno fiiri marka tusaalahan oo kale a oo kale aan daabacno maxaa sameynayna a oo kale haddaad daabacid fiiri 10 ku soo baxaysa. so b oo kale haddaad daabacid 20, haddaad daabacno tusaalahan oo kale d oo kale kan ugu dambeeya aad daabacno fiiri 40. mid walba haddii aad daabacdid daatadiisa ku soo baxaysa. waan isticmaali kartaa oo bracketna waa isticmaali kartaa. wax oo problem ah mushkilad ma keenayo, qaabkaasna waa isticmaali kartaa. so tubal unpacking la dhahaa nidaamkan marka oo sidaan aad sameynaysid. hadda muxuu ahaa a iyo b iyo c waa 3 variable. fruitskan ayaa extracting lala soo sameeyay apple iyo banana iyo cherry. waxaa lagu store gareynaa a iyo b iyo c si iskugu xigana loo store gareynaa. kabacdina maxaa la sameynaa outputkii waxaa kusoo baxaya haddii aad daabacid oo kale mid kasta eedaas waxa ku store garaysan value ugu horeeya, b da waxa ku store garaysan ka labaad, c da waxa ku store garaysan ka saddexaad. qaabkan waa la sameeyaa marka. waxaa jirta laakiin ugu error ku soo baxay waa in marka aad itemskan unpacking aad ku sameynaysid variableska aad ku store garaynaysid iyo values waa inay same ahaadaan. tusaale 50 haddii aan dhaho kale 60 aan dhaho oo valueski ay bataan 50 aan ka dhigno tusaalahan values haddii ay bataan, laakiin aan variableski markaad unpacking sameynaysid afar xabis ay yihiin, error ayuu ku soo saari doonaa. errorka marka sida lagu xalinaa tusaale waxaan sameynaa solution ayaa keena 10 20 30 40 itemskan tusaalahan oo kale 3 items ka isticmaalayna 10 ilaa iyo 20 ilaa iyo 30 saddexda items ugu horeysa ku store gareena. maxaa soo haray 40 50 60
list ahaan u sameynaa. Waxaan ku store gareynaa d-da ku store gareynaa, laakiin waxaan ka hormarnaa star ayaan ka hormarnaa si Python-ka uu u fahmo d-dan in lagu store gareyn doono inta items oo soo hartay iyadoo items-kaas laga dhigayo list ahaan. haddii programka aan daabacno fiiri, hadda programkan hadda aan daabaco kale eedii 10kii muxuu ahaa sidii ugu store gareysan tahay. haddii aad daabacid sida 30 ku store gareysan qaabkaas ugu store gareysan tahay. laakiin fiiri d haddii aad daabacaan maxaa soo baxay 40 50 60 oo list ahaan u samaysan ayaa inoo soo bixi doona. 40 50 60 oo list ahaan u samaysan saa ujeedid. so intaan marka maxaa sameeyay maadaama aan variables yar isticmaalayo, saddexda variables ugu horeysa ayaan isticmaalay, inta soo hartana variable kan ayaa la isugu geynaa waxaana laga dhigaa list. shardi miya marka inaad isticmaashid starkan kan ugu dambeeya ku isticmaashid? maya, shardi ma ahan. waxaad ku isticmaali kartaa sida oo kale waa sii kartaa. sidoo marka muxuu ahaa Python uu isku fahmaa marka wuxuu sameynaa 10kan wuxuu u assign gareynaa a, 20kan wuxuu u assign gareynaa b. waxa uu fiirinaa inta values ay soo hartay. marka laba values meeshan ku soo hartay, laba variable meeshan ku soo hartay. values kan inta way soo hareen marka wuxuu u dhaafaa marka 60 kaasi d ayuu u dhaafaa 30 20 40 50 wuxuu ku store gareynaa c ayuu ku store gareynaa. hadaa daabacna fiiri d aan daabacnay 60 bis soo baxday, laakiin c haddii aad daabacid maxaa soo baxaysa fiiri 30 40 50 mar walba intii marka iyadoo ku aadan ayuu muxuu ahaa u sameynaa. inta items soo harta ayuu mar walba xisaabinaa. items-kaas marka laga soo tago list ayuu ka dhigaa. itemka aan ciimatay oo muxuu ahaa starka u sameysay ayuu ku store gareynaa. haddaadan sheegina error ayuu ku soo saaraa. tubal unpacking la dhahaa marka nidaamka aad sameynaysid. so kanna waa sidoo kale marka wuxuu leeyahay green waxaa lagu store gareynaa apple-ka, yellow waxaa lagu store gareynaa banana. inta soo harto dhanna maxaa lagu store gareynaa red ayaa la isugu geynaa. so haddaad daabacid green haddii aad daabacid maxaa kusoo baxay apple kusoo baxay. print yellow haddii aad daabacid maxaa kusoo baxay banana. red haddii aad daabacid maxaa kusoo baxay listigaanana soo baxay. marka sababtoo ah inta soo hartay ayaa list ahaan loo sameeyo lagu store gareeyo. sharcigu muxuu yahay marka if the starka markaa isticmaalaysid muxuu ahaa calaamadii aad listiga uga dhigaysay itemska soo haray, haddii aad ku isticmaashid marka another variable name waa sida aad soo sameynayna itemka ugu dambeeya maahan mid kale haddaa ku isticmaashid, Python will assign values to the variable until the number of values left matches the number of variables left. sidaan soo sameyna waa asaga Python fahmayo. haddii aad assign gareysid starka variable kale haddii aad siisid oo aadan kan ugu dambeeya usan ahayn, wuxuu sameynaa wuxuu soo xisaabinaa inta values ee soo hartay marka laga soo tago inta kale ayuu wuxuu u assign gareynaa itemskaas list ahaan ayuu u sameynaa. tubal unpacking waa qaybtaas marka. cashirkan marka waxaan usoo gabagabeyneynaa videoga yara dheeraana laakiin waan kusoo gabagabeyneynaa. markaan rabna marka looping naa sameysid oo kale loopingka listiga hore ugu soo sameynay for loop iyo while loop markaa isticmaalaysid oo range la isticmaalaysid. dabcan listiga cashirada dib ugu laabo listiga isku mid ayay ka yihiin marka la isticmaalayo loopingka la sameynayo. join two tuples markaa rabtid laba tupal inaad isku dartid oo kale ama isku geysid oo muxuu ahaa hal meel muxuu ahaa ku wada store gareysid plus operator isticmaalaysaa. tusaale tupal 1 waxaa ku store gareysan abc, tupal 2 waxaa ku store gareysan 1 2 3, tupal 3 ayaa soo qaadatay equal ayaa dhahday waxaa ku store gareysay tupal 1 plus tupal 2. so it means tupal 1 waxaa waaye abc, kan ku xiga maxaa waaye 1 2 3. sidaas ayaa looga store gareyn doonaa. qaabkan ayuu u sameysmaa marka plus operatorkan waxay isku geynaysaa tupaliska mar walba isticmaalaysa 1 ilaa 2 3 mid aragtid. multiply tupaliskana waxaa u isticmaali kartaa calaamada multiplicationka waa badin kartaa qiimahooda. tusaale ahaan oo kale waxaa sameyn kartaa fruitskan hadda waxaa ku store gareysan apple, banana, cherry, saddexdaana ku store gareysan. my tupal ayaa soo qaadatay variable ah, object kale ayaa soo qaadatay equal ayaa dhaxday waxaa soo qaadatay fruits waxaa ku store gareysan saddex items ku store gareysan. saddexdan items waxaa dhahday times 2 oo ah itemskan ego times 2 ah waxaa ku store gareysaa my tupal oo variable kala. micnaheedu waxa uu yahay apple, banana, cherry ku store garey haddana ayagay ku celi apple, banana, cherry sidaan ayaa soo bixi doonto apple, banana, cherry, apple, banana, cherry.
sidaan ayaa marka muxuu ahaa times 2 ugu sameeyey marka tubalkii times 3 haddii aad saddex mar ayuu soo celcelinaa marka qaabkaas multiplicationka u samayn kartid waa slide ugu dambeeya marka wuxuu noo sheegaa methodiska tubalka laba method ayaa inta badan la isticmaalaa mid waa counting oo count oo ah in aad item fiirisid inta jeer uu kusoo laablaabtay tubalka iyo indexiga oo loo isticmaalo specified value ina positionka ama locationka indexigiisa ina heshid methodka loo isticmaalo cashirkan marka waxaan uga hadlaynay tubalka ayaan uga hadlaynay list ayaan kaga soo hadalnay cashiradii ka horreeyay dabcan pythonka waayo weli meeshaan kuma sinna cashirka xiga wuxuu inooga bilaaban doonaa hadduu alidmo dictionary maxay tahay waa maxay dictionary waa qeyb kamid ah asagana python data typeska oo asagana aan sida aan kuwa usoo sharxanay si lamid ah usoo sharxi doono insha allah meesha ayaan ku sameynaa billahi tawfiiq